السلام عليكم صاحب يال سو دhowaada maanta waxaan idin wadaa xubin jirka bini'aadamka aad iyo aad muhiim uga ah xubintaasi maxay tahay hadaba waa beerku waa xubinta labaad ee jirka bini'aadamka ugu weyn marka laga yimaado maqaarka sidoo kale beerku waa xubinta koowaad ee jirka bini'aadamka ugu weyn marka la fiiriyo xubnaha gudaha ku jira ee adkaha ah hadaba halkee ku yaala beerku sidaan wada ognahay beerku wuxuu ku yaalaa dhinaca midig ee kore ee uurku jirta wuxuuna ka hooseeyaa qafiska feeraha ama saabka feeraha beerku qiyaas ahaan wuxuu la eg yahay kubad oo kale miisaankiisana waxaa lagu sheegaa 1.36 kilogram ilaa 1.59 kilogram si kale haddaan u dhaho 1 kiilo iyo 36 gram ilaa iyo 1 kiilo iyo 59 gram shaqooyinka aasaasiga ee beerka waxaa ka mid ah kow beerku wuxuu soo saaraa maado loo yaqaano bile dheecaankaasi beelka waxaa lagu burburiyaa cuntooyinka ka samaysan dufanta shaqada labaad ee beerka waxay tahay beerku wuxuu jirka ka saaraa daawooyinka qaybo ka mid ah kolestaroolka bilirubinta iyo hormoonada qaar shaqada saddexaad beerka waxaa lagu keydiyaa sonkorta qaab glycogen sidoo kale waxaa lagu keydiyaa fitamiiniska iyo macdanta shaqada afraad beerka waxaa lagu burburiyaa cadiinta borotiinada iyo weliba carbohydrate shaqada shanaad beerka waxaa lagu sameeyaa borotiinada qaar ee loo yaqaano plasma proteins sida albuminta iyo weliba collagen factorka oo u fiican xinjiraynta dhiigga beerku wuxuu laga maarmaan u yahay dheefshiidka cuntada aan cunayno iyo weliba sidoo kale ka saaridda jirka walxaha sunta ah beerka wuxuu aad uga qayb qaataa dheefshiidka cuntooyinka qofka uu cunayo sidoo kale tana waa xubinta koowaad ee haddii qofka uu sun cuno jirka la dagaalamaysa kana qabanaysa jirkana laga saarayo haddii uu awoodi waayo markaas kabacdi uu qofku sumoobayo saas darteed beerku waa xubinta sunta looga saaro jirka bini'aadamka sun kastoo jirkaaga soo gasha meesha koowaad ee ka dhacayso waa beerka dhammaan dhiigga ka yimaada caloosha iyo mindhicirada waxa uu maraa beerku waxa uu habeeyaa dhiigga iyo dhammaan waxyaabaha ku jira ee looga soo daray caloosha iyo mindhicirada beerku wuxuu meeshaas ka abuuraa nafaqooyin jirka u baahan yahay sidoo kaleetana waxa uu burburiyaa daawooyinkii qofka afka kasoo qaatay ee soo maray caloosha iyo mindhicirada kadibna lagu soo diray dhiigga asagoo ka dhigaya qaab fudud ama yaryar kuwaas oo isticmaali karo jirka intiisa kale sidoo kale beerku waxa uu sameeyaa inuu jirka ka saaro sunta haddii cuntooyinka qofka uu cunay ay ku jirtay wax sun ah beerka marka koowaad ay yimaadaan waxa uu ka saarayaa dhammaan sunta kadib dhiigyo nadiif ayuu u gudbinayaa wadnaha beerku waa xubin laga maarmaan ah kaasi uusan qofku la'aanteed noolaan karin balse waxaa laga yaabaa in qayb ka mid ah oo qofku ku noolaan karo tusaale ahaan haddii qofku beerkiisu geri ahaanba halaabo oo ay noqoto in la bedelo qofka cad loo jaray oo qof kale looga qaaday oo loo geliyay ayuu ku noolaan karaa ma u baahno in gebi ahaan qof kale laga soo saaro beer keliya cad ayaa qofku bixin karaa cadkaas ayuu qofka kalena ku noolaan karaa laakiin la'aantiisa beerka lama noolaan karo cuntooyinka u roon caafimaadka beerka cuntooyinka u fiican caafimaadka beerka waxaa ka mid ah kofeega cabidda kofeegu waa mid ka mid ah waxyaabaha sare ugu qaadi karto caafimaadka beerkaaga labo cabista shaaha sidoo kale isticmaalka blueberryga sidoo kale miraha loo yaqaan canabka sidoo kale waxa aad ugu fiican beerka lowska waxa kale aad u anfacaya casiirka ama cabitaanka laga sameeyo bayturaafka waxa kale aad u anfacaya saliid saytuunka waxa kale beerka aad u anfacaya kalluunka dufanta leh haddaba cuntooyinkaas ku dadaal si aad horumarisid caafimaadka beerkaaga intii aan mawduuc kan lamida ku kulmayno asxaabay waxaan kaga tegayaa kulan wacan oo wanaagsan iyo maalin barakeysan